madaxda oo si weyn dadweynuhu u sugayeen ayaa maanta qodobka laga jaray masaajidkaasi waxaa ka socday muddooyinkii u dambeeyay hawlo iskugu jira dib u dhis iyo ballaadhin xagga muuqa masjidka munaasabada qodobka jarka masjidka Ar-Rahma waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta mudane aadan xasan aadan danjiraha dawladda Sacuudiga u fadhiya jamhuuriyadda Djibouti Ibrahim Al-Nawafil agaasimaha xafiiska awqaafta Bashir Bile iyo waliba tiro culimo diina masjidka Ar-Rahma waxaa imika uu dhan yahay 400 oo mitir oo isku soo wareeg ah oo u qaybsan qayb loogu talagalay ragga iyo qayb kale oo haweenka ah oo dul iyo hoos aba dhismaha wajiga cusub ee masjidka Ar-Rahma waxaa kamid ah qol weyn oo buugaagta lagu akhristo 6 xafiis oo loogu talagalay maamulka masjidka 5 xarumood oo ganacsi iyo waliba kaniisho fara badan oo u qaybsan rag iyo haween dhismaha cusub ee masjidkaasi waxaa ku baxday lacag dhan 750 malyan oo faranka Djibouti waxaana maalgelisay shirkadda hawlaha guud ee laga leeyahay dalka Sacuudi Carabiya danjiraha dawladda Sacuudiga u fadhiya jamhuuriyadda Djibouti Ibrahim Al-Nawafil hadal halkaasi ka jeediyay waxa uu ku sheegay in ay farxad sharaf ku dheehan tahay in uu ka qayb qaato munaasabada qodobka jarka ee masjidkaasi Ar-Rahma waxaana uu sheegay in masjidka Ar-Rahma uu ka mid ahaanayo hadda wixii ka dambeeya masaajidda ugu waaweyn ee dalka waxaana aan ku dardaarmaya buu yiri in aad sida ugu wanaagsan loo dhowro alaabta daranyadana laga dhabo quruxda masjidka iyo dhismaha kale ee ku lamaan wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo waqafta mudane aadan xasan aadan oo irtideeda u waramay waxa uu sheegay dareenkiisa farxadeed ee ku lug leh dhamaystirka masaajidka Ar-Rahma oo hawlo dib u dhis ah iyo ballaadhin lagu sameeyay waxa uu yiri sidatan waxa sharaf noo ah inaan maanta kala wareegno dawladda Sacuudiga ee walaalaheen ah oo nala joogo safiir Ibrahim Nawfal oo nagala joogo iyo daaqamkii la shaqeynayay ay nala joogaan oo inoo dhisay runtii masjidkan aadka u weyn baaxadda leh quruxda badan xoolo badan ay galeen hadiyadna ah ay dawladda Sacuudiga ay siisay shacabka Djibouti ay siisay oo ugu deeqday aadna looga maartaan warhayay oo la sugayay dhamaadkiisa iyo furniinkiisa dad fara badan oo qalad fahansan baa jira oo moodaya lacag dad reer Djibouti laga ururiyay in lagu dhiso taasi sax maaha waxa inoo dhistay dawladda Sacuudiga ayaa inoo dhistay waxaana laga dhisay wasaaradda maaliyadda ee Sacuudiga ayaa dhistay waxa jirtay hayd mar lacag masjidkan loo ururiyay oo dadka reer Djibouti doonayeen inay dhistaan lacagtii waxaan rajaynaynaa inay taalo oo amal kale oo khayr ah lagu qaban doono dadkii hayay ururiyayna ay tahay maaragtana inay amalkii khayrka ah loogu talagalay kullu mid ah ay ku qabtaan laakiin masjidka kan waxa dhisay dawladda Sacuudiga dhistay waana uga mahad celinaynaa